baarifalka waalidka uma ahan bardhamaad marka ay geeriyoodaan waalidka. Ha yeeshee waa mas'uuliyad saaran dhallaanka ay ka tagaan inaanay ku iloobin qabriga isla markaasina ay u soo duceeyaan. haddaba sheekha weyn ee caalimka Soomaaliyeed ahna aas-aasaha mu'asasada weyn ee barashada diinta islaamka ee Daarunaciim Sheekh Maxamed Shariif Siraaj Barre isagoo gudanaya waajibkaas diineed waxa uu soo qaban qaabiyey kulan weyn oo lagu duceynayo waalidiintiisa. wareen kulanka waxaa lagu bilaabay akhrinta Qur'aanka Kariimka oo thawaab ka soo xasilay loo niyeysanayo waalidiinta sheekha. intaas kuma ekaanin ha yeeshee halkan waxaa lagu ogay xalqad weyn oo xuska eebbe ah oo digriga Axmediyada ah. taa kuma ekaanin khayraadka ee markii gabalkii uu dhacay waxaa sii socday xuska eebbe. dikriga kadib salawaad lagu amaanay xabiibka Ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelay iyo qasiido loogu duceynayay Allah u naxariistay alwaalid Xaaji Siraaj Barre Caalin ayaa goobta laga qaaday. ya rasuulallah jud karama sallallahu ala al-bahji wa aqid bil ghaith wal farji إننا نرجو شفاعته لصلاح الدين ونهجه ألف صلى على البهجي من أتى للناس بالفرج يا ربي فارحم فقيدا وصبي عند الزحام اغفر له يا إلهي وقه الأفعى الحمام الله يا إلهي يا إلهي الله يا إلهي يا إلهي الله يا إلهي يا إلهي الله ارحم سراج الكرام. ugu dambeyntii Sheekh Maxamed Shariif Siraaj Barre Macallin Cabdullaahi Maxamuud Guutaale iyo Khaliif Maxamed Amiin Macallin Cabdiraxmaan Xaaji Aadam ayaa goobta ka hadlay.
awowgay iyo marka la yidhaahdo aabbahay labadooduba waxay ku sifaysnaayeen inay jeclaayeen diinta iyo ahalkeeda manqabo qof laga sheego ka weynuna ma jirto qofba waxaa lagu xusiisan doonaa maalinta ay geeriyooto bacdigeeda qof kolley waxaa lagu xusiisan doonaa diin nacaybkeedii dadna waxaa lagu xusiisan doonaa diin jaceylkoodii awowgay waxyaabaha lagu xusiisan waxaa ka mid a xoolihii ilaahay siiyey qismiyo wuxuu u sunta sadaqo magaada ou haysta qayb ka midana waxay u suntanaayeen sadaqo weligiisna taariikhda laguma ogaalay gurigiisa inuu seexday iyadoo wax bisil oo martidii u soo gasho la siiyo aysan u diyaarsanayn hadda ninkii raayaa oo wanaagsan oo caqli iyo cilmi iyo taqwo ku wanaagsan dadka waa ka dhexeeyaa dad badan ku filan yahay islaamka dhan wuu ku filan yahay aabbihii iyo waalidkii iyo dadkii waxbaray iyo mashaayikhdii waxbartay xagga dhigo hal marahoo ninkuu maaragtay oo ninkuu meel ka helo oo ama wax siiyo ama cilmi u sheego ama caqli u sheego ama oo mataqaana wax dheef siiyo intaas wiilku kaliis ninka kuma koobnaa ninkii dhalay iyo ninkii wax baray iyo ninkii mataqaana kuma koobna hadduu nin fiican yahaba إله والدينك وقشان لورد ربي وعز يا كرام يا تعلم إلهي وزيادة إله قبر وضع واسعه إله كتاب كذا ميك تكسيه إله سيئات كذا ترتر إله ربي ورد إلى آخري وما تصدق هذه إلا بحي إله ربي بكرة حسنات ويان إله بكرة حسنات ويان إله ربي أقول حريص إله أقول حريص إله وحيد بقى وقفقي إله وحي خير يستن أقول زيادة إله ربي وأنت صدقات عن بحدي أنت حسوستي أنت حسستي أنت وحوي خير وآخر إله ربي يقول ربي ولاي والدور إله ربي وحد بركاي إله دين كذا نافع كيال إله إيمان كذا دائم كيال إله دقة واسع كيال إله ربي مالا شو نبع عافية عافية ما نسيه